Ethiopia oo iska maaweelinaysa qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee ka bixitaanka ciidamada ka jooga dalka iyo jawaab cajiib ah oo ay ka bixiyeen go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ciidamada Ethiopia guud ahaan dalka uga saarayso ayaan muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa. Page-keena ku soo biir oo ka mid noqdo saaxiibada inagu xiran. dowladda federaalka Ethiopia ayaa waxa ay markii ugu horeysay jawaab rasmi ah ka bixisay go'aanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ku aadan in ciidamadeeda ay kala baxdo gudaha Soomaaliya kaas oo uu dhawaan shaaciyay Xuseen Macalin Maxamuud oo ah la taliyaha dhinaca amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia oo soo jawaabay ayaa sheegay in ilaa imikan aysan jirin wargelin ay ka heleen Soomaaliya oo ku aadan in ay la baxaan ciidamadooda qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee lagu magacaabo ATMIS. sidoo kale waxa uu sheegay in aysan waxba ka ogeyn arrintan gaar ahaan hadalka ka soo yeeray la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. waxa kale oo intaas uu ku sii daray inuusan jirin xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah oo ka soo gaaray dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan arrintan amaba lala wadaagay dowladda federaalka Ethiopia in ciidankeeda ay ka saaraan gudaha Soomaaliya. Afhayeenka ayaa xusay inay sii wadi doonaan howlgalka amni xaqiijinta ah ee ay ka hayaan Soomaaliya isagoo oo ku dooday in weli uu yahay qorshaha bixista maadaama aan la helin ciidamadii bedeli lahaa ATMIS uu kala jeedo in aan leenin ciidamo awood leh oo Soomaaliya u dhisan. hadalka ka soo baxay Ethiopia ayaa imaanaya iyada oo dhawaan la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya uu shaaciyay isla markaana uu qeexay in dhammaan ciidamada Ethiopia ka socday howlgalka ATMIS ay ka bixi doonaan dhamaadka December sanadkan 2024 lana qorsheeyay in dhammaan ciidamada Ethiopia goobaha ay ka baxaan la geyn doono ciidamo Soomaaliyeed oo ammaanka xaqiijiya. Soomaaliya Ethiopia waxa haatan ka dhaxeeya xiisad xoogan oo la xiriirta heshiiska dhinaca badda oo muran ka badan dhaliyay oo Muuse Biixi Cabdi sanadkan bilowgiisii la gaaray Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia. maamulka Somaliland ayaa ku hungowday heshiiskaasi iyadoo Abiy Ahmed uu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulayo sidii heshiiskaas miro dhal ugu noqon lahaa, balse dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay meel adag ka istaagtay heshiiskaas kuna tilmaamtay mid xadgudub ku ah madax banaanida dhuleed ee sharafeed ee Soomaaliya. waxaana Ethiopia dhowr jeer hore lagu cadaadiyay inay dib uga laabato heshiiska dhinaca badda ku qotoma. ciidankoodii joogay Soomaaliya ee howlgalka midowga Afrika ee ATMIS qaybta ka ahaa ayuu saameeyay khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhashay heshiiska dhinaca badda ah ee ay wada gaareen Somaliland iyo Ethiopia.